Ma ogtahay dad badan in ay lumiyeen shaqadooda kaliya sababtoo ah Excel ma aqaano? Ma ogtahay qofka kaliya ee yaqaana Excel inuu ka shaqo badan yahay saddex qof oo aan aqoonin? Haddii aad rabto shaqo, horumar nafsi ah, ama inaad hogaamiso dad kaleente, muuqaalkan adiga ayuu ku quseeyaa. Bal isweydii, ma aragtay shaqooyin badan oo Excel requirement yahay? Ma tahay arday dhib ku qaba xisaabaadka iyo jadwalka? Ma tahay qof buuxiyo xogo ay ka qaldamaan mar walbo? Haddii su'aalahaasi mid ka mid ah ahaa tiri, Excelka adiga ayuu kuu samaysan yahay. Ka hor inta uusan jirin Excel, dunidu waxay wax ku qoran jireen buugaag iyo warqado kala yaacsan. Haddii hal qalad dhaco, dib ayaa loo qori jiray dhammaan waxyaabihii khaldamay. Halkaas waxay shirkadaha, bangiyada iyo ganacsiyada ku lumin jireen qarash badan si ay u saxaan qaladkii dhacay. Dabadeed dunidu waxay isweydiisay, ma jiri karaa xal kale? Halkaas ayuu ka dhashay Excelka. 1980yadii, xilli kombiyuutarada la bilaabay in lagu isticmaalo xafiisyada shaqada, ayaa waxaa la abuuray Microsoft Excel. Ujeeddadu waxay ahayd mid fudud: in kombiyuutarka laga dhigo maskax kuu shaqaysa adiga. Excelka markii horeeta ma ahayn mid qurux badan, balse wuxuu ahaa mid caqli badan. Dunida maanta, Excelku waa luuqadda ay ku wada hadlaan xafiisyada. Maxaa loo sameeyey Excelka? Excelka waxaa loo sameeyey si uu u xakameeyo xogta, u yareeyo qaladka, u badbaadiyo waqtiga, sidoo kaleetana u fududeeyo go'aan qaadashada qofka. Excelku kaliya ma ahan barnaamij xafiiseed, waa qalab kaa dhigayo qof awood leh. Qofka Excelka yaqaano, xogta kama boqo, tirooyinka kama cararo, warbixinadana kuma wareero. Maxaa Excelka ka dhiga mid aad muhiim u ah? Dunida maanta aan ku noolnahay waa dunidii xogta. Qof walba oo ah arday, shaqaale ama ganacsade wuxuu la macaamilaa xog. Su'aashu ma ahan ma isticmaali doonaa Excel, balse waa goorma ayaan bilaabaa isticmaalkiisa. Maxaad ku qaban kartaa Excelka? Excelka wuxuu kuu samayn karaa xisaab toos ah, jadwal nadiif ah, charts indhaha qabta, iyo warbixin xirfadaysan. Wax walbo tilaabo tilaabo ayaan kuu bari doonaa. Kuma oranayo riix halkaas keliya, balse waxaan ku fahansiin doonaa sababta. Ha ka harin taxanaha Excelka luuqadaada hooye. Xukumo janalka, cashirka xiga waa kan ugu muhiimsan.